magaalada Hargeysa waxaanu ka helay Dr. Ali Khaliif Galayd oo intiina badani taqaanaan waa madaxweynaha Khaatumo socoto gaaban ayuu ku yimi magaalada Hargeysa isaga ayaa weydiin doonaa su'aasha ugu horeysa weydiin waxa weeyaan Dr. Ali waa lagu sugay waa lagu saadinayay ma timi bismillaahir rahmaanir rahiim waa ducaalo adiga iyo daawadayaasha xon cable waa salaamaya Hargeysa waa imi waxaan hadda u imi iyada qasdigaygu ma ahayn shir baan waxaan ku leeyahay Nairobi sababaana ku dheeraanayn baa ii suurta gelin waayay inaan ka baxo airportka Buuhoodle sidaasaa aan door biday inaan magaalada Hargeysa soo maro airportkan weyn magaaladanu ay leedahay aan uga faa'iideysto sidaasaan ku imi waxaan ku tala jiray inaan habeen horaan soo galay shalay aroortii inaan baxo haddana oo rag odayaal aan u isalay oo hotelkan Mansour dad badan oo aanan filaynba oo muddo hore isugu ka dambeysay baan meeshan kula kulmay taasaan u baaqday oo xalay u joogay haddana airportkan ba warkeenan hadduu dhamaado airportkan si aadaya marka haddii la sugayay haddii la saadaalinayay dhulkani waa dhulkaad ku dhalatay waa dhulkaad ardayga ku hayay joogi jirtay laakiin waxa jiray adii idinkii Soomaaliland sheeka idin socotay in muddo ah oo ma garanaysaa adduuniseen inaad ku soo aftirtaan khilaafaadkii iyo wixii dhibaatooyin jiray waxa lagu qabtay meelo kala duwan oo dibadaha inta badan adigiina Hargeysa joogtaa oo maraysa waxa dibadaha idin geeyay halkan ama Buuhoodle agteeda ama hotelka dhinaciisan kale u wada fariiso wada intiiba idinkan wada socday ilaa shalay ilaa maanta qof iyo qof baad su garanaysaa siiraayana isku waxda haydeen waxaan aanu garanayo kulay dadka qaar malaha ma garanayaan Ali maxaa jira wax kale ma jiraan waray meeshan hawlo waaweyn baa yaala colaad baa dhacday dagaalaa dhacay dadka reer Khaatumo waxay u haystaan in shirkii Burco koobii 9 waan ka qayb galay anigu kii Boorame 3 waan ka qayb galay waxbaad ka dhistay markaa Soomaaliland aniga afka hadal hay gelin markaa waa u aragnay in bal la huliyo haddii wax la wada yeelan karo laakiin dhibaatadii lagala kulmay xamar burburkii iyo dhibkii dadka soo gaadhay iyo colaadii iyo magaaladan Hargeysa iyo Burco iyo waxaan umaleeyaa berbera dagaal badan kama dhicin laakiin magaalada Burco iyo magaalada Hargeysa wixii ka dhacay waa ogaa markaana waxa soo socda waa noo muuqatay aniga iyo Siilaanyo laba kulay rag badanna waa hayno marka xukuumadda kamid ahaa tii Maxamed Siyaad Barre kamid baad ahaydeen oo iyadana idinka rogay annaka marka ay noogu muuqatay wixii dagaalkii 77 ka dambeeyay arintu in siyaalo badan ay Soomaaliya iyo danaheedii isu bedeleen runaantii waxba markaana la iskama hakranayn colaad iyo dhimasho iyo xasuuqid iyo intaba waa la kala tirsanayaa shirarka anigu marka aan imi waxa anigu Mareykan baan ku nool 82kii yaan ka tagay Soomaaliya ka baxay aniga Siilaanyana raggii markaa tashanay muu tagay adna waxa tagtay waraniga Siilaanya talaan ku ahayn rag badan baan heshiis ku ahayn inaan baxno raggii annagu 82kii markaan baxnay rag baas 89kii soo baxay qaar baa 90kii soo baxay oo dibadda ka badiyo qabsan oo waliba marka Burcaan isugu tagnay annaga noo akhriyay waxa tiin hadhaa waray habaadaagu aftirsiina ma aha nimankiinan hadda socda abahashan nagama yeelan kartaan alaa xal waarun shirarka waa ka qayb galay markaana wixii ka horeeyay 83 ilaa 90kii
dagaaladii sokeeyey dhulkan ka socday ee meella SNM iyo ciidamadii maxamed siyaad barre lagu dagaalamayey dhulka lagu dagaalamayeyna dhulkaa Khaatumo wax weyn buu ka dhex ahaa colaadaa dhacay anu markaa mucaarad baanba ah mucaarad yaan ahaa jabhadaha ma gelin laakiin mucaarad baan ahaa shirarkan waxaan u imanaa waxaa ii muuqatay armaa ka daro dibi dhal ay noqotaay oo wixii hore la kala tabanayay armay waxaanu faraha ka baxaan oo xasuuqiya waxaa dalalka Afrikaanka ka dhaca Rwanda iyo Burundi iyo armay ka dhacaan dhulkeena taasa keentay tii un baanu haddana daba joognaa nabadna in la helo danaha la wada leeyahayna in ummadda iyadoo goonyaha laga wada joogo oo aan cidna waxba lagu khasbayn oo cid walba ay cidna ay cid marti u ahayn in dadku isu yimaadaan oo wada hadlaan war meeshan annagu sadalagna kuma imanayno wasiir iyo baarlamaan iyo xoogaagan hal la kordhiyana annagu Somaliland siday hadda tahay uguma soconno haddii Somaliland dib loo dhisayo oo ummadda Somaliland dhulka la oran jiray ee la wada degi jiray waxaynu wadaagnaa taariikhda yare Ingiriisku na xukumay hadda marka Ingiriiska xukunkiisa annagu waa ka dagaalanay marka qudhadeeda annaguna weligay xitaa Ingiriiska heshiis lama aanan gelin ay ducaalo waxaan rabaa inaan unu soo noqdo su'aal muhiim ah weydiinaysaa meelo badanna waad ku shirteen maxaa halka loogu shiri waayay waa lagu shiri doonaa laakiin xasaasiyad badan baa jira shacabka oo ku dhex jira oo ah haddaan dhanka anigu Khaatumaanahay xaggaasaan ka imi dadkaasuna haddaan lahayn taageeradooda oo wixii annagu aanu ku wada hadallo marka hore aan imanaynana talo urursan baanu ku imanaynaa haddaanu wada hadallada ka qayb galno oo waxyaalaha qaarkood ay noogu muuqdaan macquul iyo kan ula noqonaynaa dadkii markaa mar walba taxgelinta iyo dadka perceptionkooda sida ay dadku xudhaadayaan in la taxgeliyo habboon nooma muuqan dadku inay diyaar u yihiin inama Hargeysa ama Burco lagu meelkaasoo Caynaba la yiraahdo yaan isku araragnay haddii hurfadhi loo roganayay midhayn dhageystayaashaada wax yar baa hurfadhi yaqaan hurfadhi Caynaba kama foga 40 kilomitir meelahaas ayay jirtaa waa dhulkaas xuduudka loo haysto dadka maskaxdooda marka la eego laakiin waxaan u malaynayaa haddii shirarka dibaddana faa'iidadooda waa aragnaa waxa loo baahan yahay annagu ma lihin qaramada midoobay iyo ururka Afrika iyo jaamacatul carab iyo haydin dhex fadhido laakiin warbal haddii ay wax inoo socon waayaan haddii waxaynu ku heshiinay labadeena dhinac midkood jabiyo warbal cid nasteexa inoo ah oo aynu inaku wada xulannay hadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladdiisa iyo shacabkiisu arrimaha Soomaalida ilaa Carta shirka Cartana waaba ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ka noqotay waa sax laakiin Djiboutina hadda iyo madaxweynahaasuna ilaa iminka aad buu isugu mashquuliyaa in uu wixii taakula iyo soo dhaweyn iyo dhiirigelinba siiyo wixii Soomaaliya isu imanay waa laga yaabaa haddiiba wada hadalladana Khaatumo iyo Somaliland ay meel caga dhigato oo wax la isla ogolaado hadda tii Soomaaliyana qabya waa halkeedii meesheedii bay taal cid hadda aanu u soconno odhanayno Somaliland ay muqaddaskii hore la sheegay warbal muqaddaskii aan dib ugu noqono maxay dan inoo tahay hadda xamar uma danaynayno hadda cid kale loo danaynayo ummadan dhulkan joogta maxay dantoodu tahay dadkan Soomaaliya oo dhan haddii waxa Soomaali ku hadla hadii la isku daro 25-30 milyan waa meelaha waaba noqon karaan baan u malaynayaa horana taariikhda waxay in la isla wada raadiyo taa laga yimi taasi waa lagu jabay meesha taa laga yimi waxaan moodaa hadda Ethiopia lafteediiba 9 gobol noqotay oo qowmiyaadkooda loo qaybiyo dadkii Soomaalida ah ee Ethiopia waxa badan oo tadxiyaata loogu galay
dee iyaka hadda ka mid ah Ethiopia waana waxayn hore u ahaan jirin oo badan bay ka yihiin wax horumar oo badan oo aan dadkaas soo gaarin waa jira in badan oo u dhibanna waa jirta Kenyana iyadana dee warkeed Djibouti waaba dawladdaas walaashayna ee jirta على أي حال شركة هذه لو بعضه وشركة قاركود يكوا وجودن بيه لوجوه شينايو أنا النقدان ودن كبديهيس أما الله سبحانه هالنقدان أما بوهد له هالنقدان أما عرقابه هالنقدان أما هرجيسة أما قبيلي ماشي دوني سبه هالنقد أما بورمي إن لي سقوي ماد وهولهن يدو وحيل صولف فجوري أنا يان كوسي راتشيني عليه عد ما يصير صاحب كم يصيرتين ملحويني ويسرني حالي عاد كود هذا ما هي حالي وذا هذا ما هنا حيونا عند كرت كول لكن سيد دار ويدرو تريرا دبعته قدي ويدرو ويدرو بحاش عن فريسي نو ينقل فريسية ورشعب كسومال الله هذا يكون تاجر أنا يسيلاني وهشين كرنا أنا يسيلاني لكن شعب كسومال الله waxa uu rabo Silaanya wuxuu san diyaar dadkaas oo ahayn kuma khasbi karo meel badan uu ka hadlay waxyaalaha nagu dhiirigeliyay wada hadaladana inay oo socdaan waxa kamid ahay war meeshan daana waa ahay waqtigan aan joogana waxaan jecelahay dhaxal dadkan inaan uga tago anu taasaan boqolkii xalayna waaba ku kaftanay adna inaad uga tagto waa kamid Soomaa aniga laftayduna hadda ma aha dhaxal Soomaaliland dhaxal khaatuma leedahayna dadka reer khaatumo iyana in looga tago yaa loo baahan yahay hawshuna sida ay u taalana waa aragnaa very serious political problems yaa meeshan yaalla laakiin meesha ay hogaamintu micno badan ka samayn kartaa waa meelo marka hore loo arko inaan waxba ka suurtoobayn in la galo oo marxalad taariikhi aan maraynaayo نيروبي ما حد كدوني سامك نيروبي الشر عن صوماليا بشغل كلهاين خاتمة إسكدا إياه سومالان الشركة سانو هذه سجهر اللي عسمي لما صد عشو الصعداء وكسر نقنيا لكن والله يا بوح الشركة لقى جهد ليا وح دت كندنتو ده أرنت الحريدة سميسن كأما بقى إن الكلمة ده معمول كخاتمه واحد مدينه كل شقيني وضع عضج oo deegaankii uu ka hawlgali lahaa labada dhinac midkoodna aanay si uun u ogolayn marka laga dhinaca Puntland iyo marka laga dhinaca Somaliland marka istiraatiijiyad ahaan khaatumo ilaa magaceedu in muddo abu jiray hase yeeshee waxaad moodaa in aanu buuhoodla ilaa hadda dhaafino ma la oran karaa maanta waxa ku muuqatay in arrintu ay ka dabacsan tahay xagga Somaliland balse xagga Puntland wali aad moodaa inaanay jiritaankaaga xitaa aanay ogolayn waxa la yiri oday iyo wiil oo dhalo wada socda oo geeloodii kalmay yaa geela raadkiisii baa hayaan waa goor kaliila yarkiiba wuxuu aabba meeshaynu maraynaa kulula odaygu wuxuu yidhi aabba geelayniiba raadkiisii baynu haynaa in meel kastoo kulul loo maro annagu meeshii danta ummadda ku nool khaatumo sool iyo sanaag iyo cayn ku nool dantoodu meeshay tahay waa run waxa yiraahaa khaatumaanu diyaar u nahay inaanu la hadalno Somaliland maamulka Somaliland baa u jira maamulka Puntland hadduu miyirsado oo yiraaha waa wada hadlaynaa in badan oo iyanaga dantooda ku jirta annana danteeda ku jirta hadda iyadan abtirsiinaba la aadin yaa naga dhaxaysa hadday iyo ku miyirsadaan oo diyaar u yihiin annagu diyaar baanu u nahay hadday taa kilinka noqoto dana badan yaa meesha tan taalla waxaanu hadda kulli hayno oo aan dee magaaladan gaalkacyo kama dhoofiyo diyaarad gaalkacyo ka raaci maayo hargeysaan ka raacaya sababtaana wada hadalka madaxda Somaliland ay qaadatay ee aanu heshiiska ku nahay ee inta meeshaanu marayno rajadayadu ma xuma laakiin haddana dariiqu waa dheeri qabyana waa halkeedii dadka sool iyo sanaag iyo cayna waray Soomaaliya waxay 4.5 bay aadeen taanaku ma jirteen ma nihin dadka dhulka ku nool isaaqna ma nihin laakiin haddana
nimankaasuna waxa igu maqaalaa dadkay sheegtaan Somalilandna dhulkay sheegataa marka balniyow arrimuhu waa iska badan yihiin waxaan u malaynayaa inuu khasab ay cid walba ku noqon doonto dadku waxay rabaan cidna lama khasbi karo dagaalo badan oo kafool oo Soomaali aanu Khaatumo iyo Puntland wada galay ma jiraan laakiin magaalo madaxyadii marka aanu joognay Talax yay weerareen madaxtooyadii bay garaaceen qabaa'il ahaan bay dadka qaarkood ula dagaalamayaan oo teknikada madaxweynaha baabuurta ilaalisa presidential guardkii yaa dadka iyaga ilaayay hadda intaasuba waa taariikh dhabow jirta wax lagu oran karo maya wax reer hebel baynu isla nahayna ka soo gudubti waxaad niyad jab ka muujisay siyaasadda xamar taale ee dawladda federaalka oo aad tiraalka waxba kama soo socdaan waxa anugu arkay muqdisho ku arkay qaar kamid ah saraakiisha kula shaqeynaya oo indhasheel uu kamid yahay oo muqdisho jooga iyaguna ma la oran karaa dhinacaas iyaguna hawl ka wada mise socdaal kale u joogaan indhasheel madaxweyne Khaatumo ah ninka aniga xilka igu wareejiyay markii lay doortay maxamed yuusuf jaamac indhasheel buu ahaa haddana wuxuuba u joogay xamar oo u magacawnaa inuu Khaatumo wakiil uga noqdo xamar ilaa heer intaanu isku ogeynay hore taasay ahayd hadduu hadda odhanayo maya Khaatumo warkeedii waa ka baxay oo waxaan qabaa inay dadka Sooliya Sanaag iyo Cayn ugu badinayso inay xamar ay iyo dawladda federaalka in laga mid noqdo hadda shalay ma aanan dhalan dawlad federaal ah oo Khaatumo Sooliya Sanaag wuxuu haysa annagu ma hayno dawlad waqooyi ka soo xigta Garowe oo habka federaalka ay xamar ka wadaan meel laguma talagelin waqooyi oo dhan waxalaala wixii Somaliland la oran jiray ciday doonayaan ha ahaadeen xamar hawsha ka socota ee Xasan Sheekh Maxamuud ka waday Somaliland baa la eedeeyaa oo la yiraahdo cidana wadanka kala goynaysa laakiin ninka wadanka kala gooyay waa Xasan Sheekh Maxamuud isaga hortiisana waa ka idhi indhasheel waa wada soconay marka aan cadaado aan u tagnay midhay rakadskiina waa ka helaysaan madaxweynuhu hadda Soomaaliya kala goysay adigu hore waxa la yiri qolyaha reer galbeedka yaa nin dhintay naxash saaraa yaa ka dhacay naxashkii hadda waa meyd la sido argo aanay haddu si dhab hadduba u sii dhintay kala go' Soomaaliyeed SNM iyo waqooyi dhulkan wixii la doonayaa laga sheego laakiin ninka madaxweyne Soomaaliyeed ahaa ee ku khudbeynaya barnaamijkiisu ahaa ee dastuurkiisu ahaa hab federaal la dhisaya waqooyina kama dhex muuqda hadda waxaan anigu ku hafraya ma aha waa ta dhabta ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa shacabka Sooliya Sanaag Cayn iyo wadcigan maanta jira iyo Somaliland oo dhan siyaasad ahaan gobolka maxaad ka oranaysaa waxaan ka oranayaa waqti adag baana soo maray abaar runtii aad u adag baana soo martay waxaana weligii sheekay shaahid ku arag reer hala irmaan leh oo halihii iyo caruurtii galey loo wada karinayo oo halihii ay soo fadhiisanayaan oo galey ama qamadi loo kariyay cunaya waa waxaana weligii maqal sheekana kuma maqal shaahid iska badaa waqti adag baana soo maray ilaahay rooba fiican baa da'ay xanuun baa jiray isna waliba buuhoodle iyo aagaas shuban biyood la yiraahdo welina wax ka sii jiraan waana loo gurmaday gurmadka ugu badanna wuxuu ka yimi dhulkan Somaliland oo ma aha maamulka kama hadlaya shacabka iyo hay'adaha badan oo jooga oo qaarkood ajnabi bay yihiin oo waxyaalahan wada hadalku aan kaga faa'iidnay hay-aduhu halkan iyo burcaba xagga uma dhaafi jirin marka hay-adahaas hadda dhulkii waa yimaadeen dadkiina baahi badan waa u qabeen dawo iyo ciidamo caafimaad oo u soo gurmaday waana loo soo gurmaday waxaan dadka ugu baaqayaa ilaahay hadiiba uu caafimaad iyo roob nabad uun inay ku tuntuunsadaan sidii nabadna
lagu heli lahaa dadku salka dhulka dhigi lahaa hadday nabad helaan wax ay leeyihiin oo aaminsan yihiin oo maamula waxaanu ma aha waxii soo dega dadku iyagaa waxooda samaysta walaalka haddaad isqabataana wada degan tahay 2 geedi ama 3 geedi baad ka guuri jirtay hadda meel loo sii kala guurguuro oo inoo harsan ma jirto tani waxayna badaysaa in la barakaysto la iimaansado wixii awoodda dadku ay leeyihiin oo iyagoo miir qaba ay ka tashadaan oo isaga yimaadaan oo waxay isla ogolaan karaan isla raadiyaan inkastaba hal la ekaato su-aasha ugu dambaysa raalliga ah oo aan ku weydiinay waxay tahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin arrintan ka taagan gobolada bariga Soomaaliland ama Sool Sanaag Cayn in siyaasiyiintu inta badan ay marka arrinku soo dhawaadaba haddana qolo kale ay leexato haddii Cali Khaliif iyo kooxda la shaqeynaysa ay wada hadallada Somaliland wadaan haddana marka waxa samaysantay qolo kale oo iyaguna ka soo horjeedo oo adigana caqabad kugu noqday inaad buuhoodla sidii hore aad u isticmaali jirtay aad u isticmaali weydo marka meel la oran karo arrintu waa mashruucan dhammaan karin oo marka qolo ay hawl bilowdaba ay qolo kale ka leexanayso wixii oo dhan ay ka hor imanayso walaa waxaan u maleynayaa reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn monopoly kuma haystaan qaybta hada waxaan u maleynayaa dawladdii Somaliland ka dhisnayd kulli dawlado badan oo inshiqaaqa iyo kala jabka laxaad kaale oo soo maraa ma jiraan oo haddana weli ka nool bal haddaba yaynan is-sheegeen hadhane dadku siyaasadda waa la isku qaban karaa waqti adagna waa lagu jiraa su-aalahan ama arrimaha laga talinayaana arrimo soo jireena maaha waa wax dadku hadda inay tashadaan dadka xooggiisana dibadahayba jiraan dad dibadda jira oo waaqaca yaalla aan si fiican ula socon yaana ugu badan kuwa hadda ugu su'aalo badan ee ugu war badan kuwaasna haddaanba fariintan idinka idiin marin karo waxaan jeclaan lahaa nin jooga Edmonton Alberta hadduu yidhaaho waxa halkaa laga hayaan anigu halkaasaan ka soo talinay bal ha yimaado isagoo hadduu political ambition leeyahay ama tala hayo dadka ha u yimaadeen halkaas talada aan ka soo dirnay intay soo marayso waxa ka habboon war annagu waxaana tuurta uma wada ridanayno mar dhaweyta waxaan lahaa shirarkan intaan imanna talaanu ku nimaadnaa intaanan go-aanna gaadhina talaanu ula noqonaynaa ciddii rabta talada processka inay ka qayb gasho annagu waxaan qabaa inay dantayada guud ay tahay ciddii talinaysana waa run ragaan ragga isugu dhoweyn yaanu arrintan ku kala baxnay waxa ugu weynay la isku hayana waxay u badan tahay Somaliland waddanka la kala gooynayaa xamar anigu mar dhaweyto waxaad lahayd waxaad tiri xamar rajo badan kama qabo inay wax iska bedelayaan xamar waa meel 2 milyan 3 milyan oo Soomaaliya ku noosha dagaallo kuwa diiniya iyo kuwa qabiilo iyo kuwa danaysi wax badanna waa jiraan cid kastoo la doortaana system ay dhaxlaan war meel aan very strong civil service jirin war meel aan shacbi diyaara oo inay cashuuraadkoodii bixiyaan oo taageeraan maamulka ayaan jirin sida ay wax uga suutaan meeshii doonaysaa noqoto anywhere in the world ma sahlanaanayso farmaajo anigu ma filayn in la doorto runtii mucjis rabbaani bay noqotay nin aniga de marka la eego dhalinyaro ah oo aaraa wada runtii isbedel iyo Soomaalnimo iyo Somali nationalism waa ku maqlaa khudbadihiisa waana ugu duceeyaa in Ilaahay ku gacan qabto laakiin arrin sahlani isaga iyo ciddii kale timaadaba waxa u yaala waa wax aad uga weyn waxa maanta ama Hargeysa yaal bood la iska badhaaf warkeeda waxa yaala waa wax aad iyo aad uga fog wax badan oo badan baanba gacan Soomaaliyeedba ku jira maamulka magaaladan wadankan aan joogno Maxamed Ibraahim Cigaal baa runtii lahaa nin siyaasi oo rugcada oo system of governance iyo administration iyo wax walba yaqaan dagaal la sokeeyay iyo inta ku jiray laakiin haddana xasilooni baa taalay oo hadda dadweynuhuna markan waxaad moodaa Soomaaliya inay u gurmanayaan Soomaaliya especially dalka Ingiriiska
iyo dalka Maraykanku si yaab leh yaad moodaa hadda inay ugu gurmanayaan Soomaaliya hadday Soomaalidu ka faa'iideysanayso iyagay markaa u taallaa laakiin waxaanu khasabna waajibna nagu ah to wish them well in Ilaahay u sahlo laakiin waxaan anigu ogahay oo ay khaatumo u samayn karaan oo ciidan ay khaatumo ka dhex qorayaan anigu waxaan u malaynayaa priorities kale mudnaan kale oo badan yaa ka horeysa annakana in Puntland warka iyaga war Puntland uma ana wakiilan nagama wakiilaha nagama noqon karaan xamar hadday rabto inay nala hadasho dee waa yaqaaneen adreeska iyaga waxaan u malaynayaa inay yaqaaneen waa mahadsan aad baad mahadsantahay madaxweyne daawadaalkaas wuxuu ahaa madaxweynaha khaatumo Dr. Cali Khaliif Galeydh oo wareysi gaar ah ku siiyay telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa oo ku sugnaa 2 maalmood dhammaantiin waxaan idinku dhaafinaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh